Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada alab aad ka dhegeysataan Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. Qodobada aad xubinta ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynayaasha Iiraan, Ruushka iyo Turkiga oo ku kulmaya Tehran si ay uga wada hadlaan xaaladda dagaalka Suuriya. Madaxweynaha Imaaraadka Carabta oo booqasho rasmi ah ku tagay dalka Faransiiska. Qodobadaas ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta wargeysada. waxaa idin soo saaray anigoo ah Xasan Nuur Maxamed markaan u diyaar garooba iyadoo faahfaahsan. Sida ay qorayso wakaaladda wararka dalka Turkiga Anadolu, madaxweynayaasha Iiraan, Ruushka iyo Turkiga oo Tehran uga wada hadli doona dagaalka Suuriya. iyadoo weli dagaal ka socdo dalka Ukraine ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu Talaadada u safri doonaa Tehran si uu wada hadallo ogala yeesho dhigiisa Iiraan iyo Turkiga oo ku saabsan dagaalka Suuriya. Dalalka Ruushka, Turkiga iyo Iiraan ayaa sanadihii la soo dhaafay kulan ay yeesheen waxa ay kaga wada hadleen arrimaha Suuriya oo ay qayb ka tahay waxa loogu yeero hanaanka nabadda ee Astana ee lagu soo afjarayo colaadda in ka badan 11 sano ka socotay dalka Carabta. saddexdooduba waxay ku lug leeyihiin Suuriya iyadoo Ruushka iyo Iiraan ay taageerayaan nidaamka Dimashq ee ka soo horjeeda iyo Turkiga oo taageeraya falaagada. Shir madaxeedka Talaadada ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ku hanjabay inuu qaadi doono weerar cusub oo waqooyiga Suuriya ah kaasoo ka dhana mitidiinta Kurdiyiinta. Iiraan oo madaxweynaheeda Ibrahim Raisi uu martigelinayo kulanka ayaa mar sii horeysay ka digtay in tallaabo kasta oo military oo Turkiga uu ka qaado Suuriya ay waxyeello u keeni karto xasiloonida gobolka. Shirka Tehran ayaa sidoo kale u sahlaya Erdogan inuu la kulmo Putin kulankiisii ugu horeeyay tan iyo markii Ruushka uu gudaha u galay Ukraine bishii Febraayo. madaxweynaha Turkiga ayaa muddo bilooyin ah u soo bandhigayay inuu la kulmo hogaamiyaha Ruushka si uu gacan uga geysto xalinta xiisadda caalamka ka taagan tan iyo markii uu dagaalka bilowday. waqtiga shir madaxeedkan ma ahan wax iska yimid. falanqeeyaha Ruushka Vladimir Sotnikov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Turkigu waxa uu rabaa inuu howlgal gaar ah ka sameeyo Suuriya si la mid ah sida Ruushka ugu fulinayo howlgal gaar ah gudaha Ukraine ayuu yiri. Turkiga ayaa tan iyo sanadii 2016 bilaabay mowjado weeraro ah oo ka dhana Suuriya kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo maleeshiyaadka Kurdiyiinta iyo sidoo kale kooxaha xag jirka ee Daesh iyo ciidamada daacad u ah madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad. sida uu qorayo wargeyska Arab News ee ka soo baxa Sacuudiga, madaxweynaha Imaaraadka Carabta ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Faransiiska. madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tagay dalka Faransiiska waana booqashadiisii ugu horeysay ee meel ka baxsan gobolka tan iyo markii uu xafiiska la wareegay bishii May. Sheikh Mohammed ayaa lagu qaabilay qasriga Elysee xaflad rasmi ah oo kula kulmeeyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay ka wada hadleen waxqabadka wadajirka ah ee dhinacyada tamarta mustaqbalka, isbeddelka cimilada iyo tiknoolajiyadda horumarsan iyo dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida gobolka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda EWAM. wakaaladda ayaa baahisay inta lagu guda jiro booqashada labada maalmood ah labada hogaamiye waxay sidoo kale ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee dhaqanka, waxbarashada iyo deegaanka iyo dib u eegista arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee danta guud. xiriirka labada dal ayaa soo bilowday tan iyo markii la aasaasay Imaaraadka Carabta iyadoo shirkado shidaal baarisa oo laga leeyahay dalka Faransiiska sida shirkadda Total ay baaritaano la xiriira shidaal ka wadeen Imaaraadka waxaana xiriirkan uu sii xoogeystay kadib booqashadii ugu horeysay ee Sheikh Sayed bin Sultan Al Nahyan ee 1976 uu ku tagay Faransiiska. Faransiisku waa mid ka mid ah maalgashadayaasha shisheeye ee ugu weyn Imaaraadka. maalgashiga tooska ee Faransiisku ku sameeyay Imaaraadka waxa uu gaaray 2.5 bilyan oo euro dhamaadkii sanada 2020 halka Imaaraadku uu galay kaalinta 35aad ee liiska maalgashadayaasha ajaanibka ee Faransiiska. dhageystayaal guud ahaan xubintii wargeysada aad kala socoteen Radio Kismaayo codka Jubbaland waa naga intaan dib ugu kulmi doono xubinta xigta waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.